Assalaamu calaykum ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boodle maanta waxaynu ka hadli doonaa Hetty Green qisada gabadhii Mareykanka ugu baqaylsanay taariikhda inta la og yahay Hetty Green waxa loo aqoonsan yahay inay ka mid tahay dumarkii ugu caansanaa ee soo mara taariikhda dalka Mareykanka waxaanu iyada magaceedu si gaar ah ugu caan baxay baqaylnimo aad u daran inkasta oo ay haysatay adduun aad u badan haddana habdhaqanada yaabka leh ee Hetty lagu arkay waxa ay ahaayeen kuwo sabab u noqday in taariikhda ay u gashay inay tahay gabadhii ugu baqaylsanay taariikhda inta la og yahay Hetty oo qoyskoodu uu ahaa maalqabeen waxa sanadkii 1834 ku dhalatay gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka Hetty oo aabaheedu ganacsado ahaa waxa ay ahayd inanta kaliya ee uu dhalay maadaama oo ay dhalatay hooyadeed oo xanuunsanaysa nolosheeda inta ugu badan waxa soo barbaariyay aabaheed iyo awowgeed yaraanteedii waxa ay awowgeed ka baratay sida lacagta loo barxisto iyo sida ugu habboon ee loo isticmaalo waxa kale oo iyada oo yar xariifaday ku noqotay fahamka warbixinaha suuqa saamiyada iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga qiyaasihii sanadkii 1865 oo ay ahayd wax yar kadib markii uu aabaheed geeriyooday Hetty waxa ay dhaxashay hanti waqtigaas aad u badnayd oo lagu qiyaaso ilaa $7 milyan markii ay 30 jir gaadhay waxa ay Hetty bilowday inay iyadu ku shaqayso hantideeda waxa ay dhex gashay suuqa maalgashiga gaar ahaan shirkadaha dhabaha tareenka sanadkii 1907 Hetty Green waxa ay dareentay xaalad xasilooni darro oo xilligaas soo food saartay dhaqaalaha dalka Mareykanka waxa ay qaadatay go'aan aad u fiicnaa oo markii dambe la dareemay waxtarkiisa markii dhaqaale xumaantu dhacday waxa ay degdeg u bixisay dhammaan deymihii lagu lahaa kadib lacagtii u soo hadhay ayaa ay ku iibsatay saamiyada iyo hantidii maguurtada ahayd ee la xaraashay dhaqaale xumada dhacday awgeed markii xaaladii dhaqaale xumo laga baxayna waxa ay dib u iibisay hantidaas iyo saamiyadaas lacagta qiimaha jaban ku soo galay oo aad u qaaliyoobay halkaas oo ay lacag badan ka faa'iiday Hetty Green waxay si aad ah isaga ilaalin jirtay xidhiidhada ragga oo ay aaminsanayd in ragga niyadooda ay markastaba tahay sidii ay hantideeda wax uga heli lahaayeen sidaa awgeed waxay aad uga dib dhacday guurka oo ay markii ugu horeysay da'deeda oo 33 jir ah guursatay nin lagu magacaabo Edward Henry Green guurka Hetty iyo Edward ma aanu noqon mid waara tan iyo markii ay isguursadeen ninkan waxa ay Hetty qabtay shaki ah ninkan inuu damac kaga jiro lacagteeda sababtaas ayaa ugu dambeyntii guurkoodu u burburay kadib markii uu agteeda ka dheeraaday Edward oo la sheegay inuu qaati ka joogsaday erayada hagardaamada ah iyada oo ku tuhunsan in uu lacagteeda ku socdo Edward muddo dheer ayaa uu goonidiisa u noolaa inkasta oo aanay isfurin mar dambe oo Edward uu cudur aan daawo lahayn ku dhacay ayaa ay Hetty ka daba tagtay si ay u daryeesho odageeda oo bilow xanuunsanaa xanuun aan daawo lahayn kadib waxa uu geeriyooday sanadkii 1902 Hetty Green markii uu odageedu geeriyooday waxa ay bilowday inay xidhato dhar madow oo aanay iska bedelin tan iyo markii ay iyadu geeriyootay waana sababta intii dambe ee nolosheeda ay qaar ka mid ah wargeysyada arrimaha dhaqaalaha ka faalooda ugu magacaabi jireen tukaha suuqa saamiyada sanadkii 1916 ayaa uu wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanku qoray warbixin ku saabsan in hantida Marwe Hetty Green ay gaadhayso ilaa $200 milyan Mareykanka ah waxa ay warbixinta Hetty u aqoonsatay gabadhii ugu maalqabaysneed ee abid soo marta taariikhda Mareykanka inkasta oo ay Hetty sida maalqabeenad u ahayd haddana waxa ay ahayd bakhaylad ilaa heer aan loo dul qaadan karin waxa ay caruurteeda ugu labisi jirtay dhar ay uga soo iibiso suuqa dharka la soo isticmaalo waxa aanay cunto uga dhigi jirtay hadba cuntada ugu qiimaha jaban ee suuqa laga heli karo
waxa la yaab leh in mar uu wiilkeedu si khatar ah ugu dhaawacmay shil gaadhi oo aad u foolxumaa halkii cid kasta ay filaysay inay wiilkeeda u dirto cisbitaal gaar loo leeyahay waxa ay geysay cisbitaal dadweyne oo loogu talagalay dadka faqiirka ah laakiin waxaa xiise gaar ah leh in markii maamulka cisbitaalku uu dhaqso u ogaaday in gabadhani ay maalqabeen tahay uu qaatay go'aan ah in gabadhan lacag badan laga qaado maadaama oo cisbitaalkan cidda loogu talagalay ay tahay faqiirka iyada oo ladan adeegii ku cidhiidhayso dadka baahan waxa ay dhakhaatiirtii gabadhan bakhaylada ah ku wargeliyeen inay iska bixiso lacag la mid ah ta lagu bixiyo cisbitaalada caadiga ah arrintaas oo ku qasabtay inay cisbitaalka ka baxdo oo mar haddii ay lacag bixin u tahay ay raadsato cisbitaalkan ka sii fiican bakhaylnimada hooyadii awgeed Ned isagoo cisbitaal fiican la geeyay haddana ma uu wada helin daaweyntii uu u baahnaa oo dabcan ku xidhneyd lacago dheeraad ah inay hooyadii bixiso maalmo kadib lugtii uu dhaawaca weyni ka soo gaadhay daawo xumaysi awgeed ayaa ay u quruntay qasab noqotay in lagu sameeyo qaliin lugta lagaga jarayo qisada bakhaylnimada ee Hetty Green intaas kuma ay joogsan waxaa mar kale dhacay inuu ku dhacay xanuunka bogdilaacu inkasta oo ay lacag aad u badan haysatay haddana markii ay eegtay qiimaha cisbitaalku ku daaweynayo waxa ay door biday inay marto hab dhaqameed oo waxa ay isku daaweysay hab dhaqameed waxaa jirta qiso kale oo yaab leh oo laga soo wariyay Hetty Green waxaa jiri jirta gabadh eedo u ah oo iyaduna lacag badan lahayd gabadhaas oo aan ubad lahayn ayaa dhimatay waxa ay ku sii dardaarantay in maalkeeda dhammaantii lagu wareejiyo hay'ad samafal markii ay Hetty ogaatay waxa ay eedadeed samaysay waxa ay dacwad ku soo oogtay hay'adii samafalka ahayd waxa yaab leh in Hetty ay u samaysatay waraaqo been abuur ah oo ay ku sheegayso in eedadeed ay iyada dhaxalka uga tagtay waxa la sheegaa in Hetty marka ay habeenkii seexanayso ay caado ka dhigan jirtay in ay dhaxda ku xidhato silsilad ay ku jiraan furayaasha khasnadaha lacagta dahabka ugu jiraan waxa kale oo ay gacanta ku qaadan jirtay bastoolad ay ku seexan jirtay iyada oo gacanta ku haysata oo waliba haddii ay dhacdo ama citaabato dhaqso ay u baraarugi jirtay maadaama oo ay markasta niyadda ka feejigan tahay sababta ay sidan u yeelaysana waxa ay ahayd cabsi ka haysa in tuug u yimaado oo uu ku xoogo lacagta ama iyada oo hurdo uu gurto inkasta oo ay xoolaheeda aad ugu gacan adkayd nafta kuma ay gacan adeegi karayn oo taas awoodeeda waa ay ka baxsan tahay bishii 1916 ayaa ay Hetty dhimatay iyada oo 81 jir ah inta ayaynu ku soo koobi doonaa qisada Hetty Green oo ahayd gabadh aad u bakhaylad ah